heesta qalbiga samriyaa ku sugan maankii sidrigaa ku tabaa hankaan kugu soo hay kari waxaan ku sabaa xasuus adoo iga maqan sanado salkaan u dhiga axdiga samiye milguhu gayaan xubbiga siyaati gelin ciraa qaada islaanteedaan ugu talagal meeshana isku xiraawna inaad aragto mooyaane maqaaxiba harkoo hay lagu cashaynayo waniga xagga kaga soo bilaabay hay distida harkoo waa sida daamirka waa daamir hadduu kulul distiisa u dhacday labaatan baa saaw qalgashayba waxyaabahan aad ka xasuusto intaan xidigaha ku jiray ee aan gudoomiye ahaa ama aan abwaanka ahaa awaalo ani islaantaydu waa tii qurbaha iskaga noolay waar siyaasiis aanu sameynayay dee waxay ka wada hadlayaa kala maqnaanshaha xiisaha iyo jacaylka markaad waxaan fanka ku yar cusub tahayna inaad heestaadii meel ka maqashiyo in idaacad laga soo daayey ayaa dee xiise gaarad haye waraysi baa layga qaaday labadan idaacadood ee waaweyn mid ka mid ah iga qaaday haye waraysigii markii layga qaaday cawaalow anu waxaan sheegay heesta qalbiga samriyaa ku sugan maankii sidrigaa ku tabaa hankaan kugu soo hay kari waxaan ku sabaa xasuus adoo iga maqan sanado salkaan u dhiga axdiga samiye milguhu gayaan xubbiga siyaati gelin ciraa qaada islaanteedaan ugu talagal islaanteeda dawaan wargeliyo waxuu ku fiiweeda maanta ka dhegeyso waraysigii qarnagate dhegeyso reedii hargeyso marka soo baxay waa barnaamijkii cawiiskaa soo gelay haye bartan isku xiraaw markuu marayaan xasuustay waan ku tuurayba sidaadan u daaray ayaaba waxa ileen heestii islaantayda ayaa ka baxday narrationkeedii ayaa ku jiro heestaasoo uu sameeyey xaaskiisa hees kaloo cirra leeyahay oo waraysiga ku jirta iyaduna oo jacayl eberkeena dhibaca ixtiraam ayaa lagu soo tuuray adigu samaysay waan ugu sameeyey erana wada qaaday haye kadibna shookaantii aan hayay baan boodayday haye xagganan oo xajiidina way dhegeysanaysaa oo aad xajiidina waan wargeliyay haye laade hooyadii baa dhegeysanaysaa haye sabab xaggan iyo xaggan buu ordayday haye gaarina waan wadaade haye telefoonkii aan soo qaaday meeshana isku xiraawna inaad aragto mooyaane maqaaxiba harkoo haye lagu cashaynayo waniga xagga kaga soo bilaabay haye distida harkoo waa sida daamirka waa daamir hadduu kulul distiisa u dhacday labaatan baa saaw qalgashayba hadaba garatay markaasuu dambaskii qiiqi duulay haye gudahaad gashay war waan ku wada xirooday haye anoo arkaya in harkoogani deebo waxa la wixii uu gaari kari ku duulay de uu qof kasta dhabarka haysto haddana in la xaliyo waa baasha iga sax ayay igu taagay oo telefoonkeedu ku jeedaa hay marka waxaan baabiyey arladan oo de meesha jingad baahid hay jingadaasi horteeda banaan kuraasi taalax laakiin xaggana kaga soo bilaabay xaggii madbaqii digsiga hayde baashiyo duuban baad marka dadkii gashay hay hadaba garatay dee mise qofka daweyni miyaa lagula dagaalamin markii ay deemayna qadarka dadkiinu waa dad iimaan qabade hay in dawal arkay inaad shil gashay oo amba taayra ku baxay dee inaan shilkan inaan seriyaste aad laakiin bal adba waxaad sawirtaa markaad imika meel jeedo tukaan yar markaad imika jeedo dee tukaankii ama gaari kale waa samayn soo maaha aad harkoogani dee dad buu gubay دشان يتمن قفان بلادي بس كذا بات بس تبوحة ده بس بوحة كده بوري كم واحد سو ميلان بقى سو مريض ده واحد حس محمد سعيد عبد البيك قاضو عن إن بدن كشكي وقفوين أنا إيمتي الليلة لأن إما كتاريخ وين وقال لنا أنا واحد قصو مرة حوالي ما كوش أنا يا محمد سعيد عبد البيك وذشوقنا بقولي كنتك كل كيال أيان فيسبوك قال وحبي قصو هربحي سان هراء إذا على هو الشيء إسلام يقضي هندية وقبوبي ووحش كديبي أنا جويس ويدي نور حديبي لهي ندايتي مركلا سانو كلا نوضو إسلام هذا محاضراني كديبنا مركلا سان سمي محان سعودي جبنون ولا شويه سواهي محان لبوا عقلو قلوب تجعل كوي
حرمة كورة بيوم حبوه وصوان قلي أهين وضر دباه ما جرى ودك روح ارتي ويلك نقض حبك وقت يقرح الله هيدا حد عمره ويقول لي هي وجهك وتري قفينا نيمتي حوالو مركا هيستي بحضي marka laxanka wax ku laray biiki baa ku laray haye cadadna oo tumaya haye habeennimadii baa markaa xaflad qurba jooga oo asxaabta ah ayuu biiki ka qaaday anna waan joogaa hodhiciga baan ka hadlayaa dumarku way soo qanjiriyaan inaan meeshii joogta oo maalmaha inaan daahan ka yar guursaday ayaa markiiba sulal haystay haye maantii dambe waqti dhabay u qaateen haye maantii dambe labani la socday haye imka saaxiibana haye waxa magiisa xaal baa laga doonaya marka ها حسن علي جلدا ما فريستay oo way yimaadeen warina tanadu sameeyo maxaa ka galay qofkii weyn iyo xil haye ma hayni abwaana oo war waliye bileeban haye ka dhacday haye waxyaabaad way ku wanjalayaan haye qoladii hindida ahayd waxa xaalkoodii harkiisa laga qaaday marka wanjalaadan way iska jiraan